okay muuqaalkan waxaan ku baranaynaa marka sida aan u sameyn lahayn waxa loo yaqaano NAT muxuu yahay haddayaan kasoo sheekeynay waxaan rabnaa all these IP addresses markii ay banaanka aadayaan in lagu ximbaaro NAT in lagu ximbaaro okay NAT in lagu ximbaaro loo translate gareeyo si NAT loogu translate gareeyo waxaa imaanaynaa systemkeena imaanaynaa right good intaan kusoo qeexanay anaga hadda waxaan sameynaynaa static ma sameynayno ee dynamic NAT aan sameynaynaa this type of network configuration aan sameynaynaa marka ugu horeysa maxaana laga rabaa inaan qeexano NAT-ka aan rabno inaan caddeeno okay nambarada iyo wixii la midka tartiib aan u sameynaynaa PDF-kan waa idin soo wadaagaya okay routerka macaamilka NAT-ka laga sameeyaa routerka macaamilka imaanaynaa right routerka macaamilka laba interface uu leeyahay labada interface midna wuxuu u aqoonsan doonaa out ama public okay waa meesha internet ka helaysid midna wuxuu u aqoonsanayaa in oo ah private ila ogaada inta dadkan waa private right interface-kan waxaan u sheegaynaa inuu yahay private interface-kan waxaan u sheegaynaa inuu yahay public intaas aan sameynaynaa router client aan imaanaynaa interface f0/0 aan galaynaa f0/0 yaa waa kan private waxaan leenahay ib NAT inside okay maxaa waaye interface-kan waxaa ugu talagalnay in dadka localka ah aan kala macaamiltano x sidaan leenahay again waxaan gelinaa interface f1/0 oo ah kan waxaan leenahay ib NAT outside maxaan sheegnaa asigane NAT outside inuu noqdo banaanka inuu ii gudbiyo okay eg hadda haddii aan idhaahdo do show ib NAT translation waxba ma ii soo baxaayo sababta maxay tahay because wax translation ah lama sameynin right si marka translationkaas loo fuliyo waxaan isticmaalaynaa dynamic NAT see dynamic NAT u sameynaynaa si aan u sameyno waa qeexayna waxaa leenahay ib oo ah internet protocol NAT oo aan rabno translation inaan u sameyno okay NAT-kaas waxaa laga soo qaadayaa inside source wait kan waa laga horeeyaa cafwan kow hore maxaa loo baahan yahay horta dadkaan dhan wixii lagu qaadi lahaa in la qeexo access list aan ku qeexaynaa access list maxaa waaye waa protocol noo suuragelinayo in aan filter gareyno cidda aan rabno inaan qaadno iyo cidda aan rabno inaanan qaadin okay intaanan qeexin NAT-ka filterkaan sameynayna waxaa leenahay access listigaada waxaa adeegsan kartaa number ama magac hadda nooca adeegsanayo access listiga waa number gadaala magac ka adeegsanayna waa tirtirayna waxaa leenahay number 1 okay number 1 waxaa rabnaa inaan u ogolaano permit yaa la ogolaanaya waxaa la ogolaanayaa numberkan in la qaado 172.16.0.0 inaan qaadno calaam su'aal saar wildcard bits mataqaanaan OSPF aa kusoo barateen right wildcard bits maxaa waa subnetko gaalgaal loo akhriyo waa 0.0.255 interalena maxaa qeexan hadda waxaa dhahnay access list numberkiisu wan yahay waxaan ku ximbaari doonaa IP addresseska oo aan NAT ugu talagalna dadkaan aan ku ximbaarayna hadda marka waxaa qeexaynaa NAT waxaa leenahay IP NAT inside source list 1 ID fasira marka waxaa leenahay waxaan rabnaa IP addresses inaan ximbaarno loona turjumo kuwaasna laga soo akhri doono turjumaanta access list 1 okay numberkan wanka muxuu ximbaarsan yahay IP addresses la turjumi lahay mar labaad aan ku celiyo waxaan rabnaa IPs in noola translate gareeyo translationkaas oo ka dhaco gudaheena gudahaasuu ku mideysan number 1 okay is based calaam su'aal saar bool ma rabnaa mis interface anaga hadda bool ma qeexin hadda interface aan ku qeexaynaa interface maxaa waaye halkaan number aan la marsiinaya boolkan waa ku xijinaynaa okay good so waxaan adeegsanaynaa marka interface kadibna waxaan sheegaynaa interface-ka oo internet-ka noo qaadaya kadibna waxaan leenahay overload ogow command-kan haddaa ka tagto maxaa dhacaya command-ka overload haddaa ka tagno waxaa dhacaya
computer ku ugu horeeyo inuu interface kan ku buy gareeyo asiga uu qabsado right soo xaleena marka enter hadda fiiriya computer kan hadduu isku dayo inuu ping gareeyo a.a.a.a okay reply wuu helayaa right laakiin router kan haddii aad gasho oo global configuration ka aad tagno oo aan qorno show id-nat translation haddaan qorno enter aad dhahno maxaa dhacay inta fiiri protocolka isticmaasho waa ICMP waa ping waxaa kasoo ping gareysa inside global maxaa waaye local id addresses kaada waa okay inside global cafwan waa public id addresses kaada oo adiga interface oo banaanka ku geenayo 17.10.0.0.2 yo ah waa interface ka right good inside local ne waa id addresses ka local kaada inta maxaa arkeen computer kaada id giis oo ku itoon wad outside global niya way outside local ama outside global labadu waa isku mid ah waa meesha adiga aad booqaneedid waa meesha aad booqanaysid nooca NAT aad sameeyna maxaa loo yaqaanaa BAT ama port address translation waa kan port address translation mujida let's say waxaan rabaa inaan booqdo browser aan rabaa inaan booqdo biri browserkaygaan galaya okay wax kasto aad samayso waa la translate gareena inta waxaa ku qoraya for example a.8 for example maxaa booqdaa hadda web browser aa booqda maano hadda routerkaada haddaa imaato oo again aa ku qorto show translate maxaa isticmaalnay TCP UDP why TCP UDP aan u isticmaalnay yaa ii sheegi kara TCP maxaa u isticmaalnay UDP na maxaa u isticmaalnay anaa idiin fasiraay laakiin haddii aa xasuusataan OSI modelka waa kasoo sheekeynay waxaan booqana server booqana serverka muxuu ahaa HTTP oo ahaa HTTP maxaa waa TCP serverka maxaa lagu sameeyay translation aan lagu sameeyay DNS ma xasuusataan DNS muxuu ku base gareysnaa TCP mise UDP ku base gareysnaa right waa kana marna UDP aa lagu sameeyay translation port numberkiisana waa 53 marna maxaa lagu sameeyay TCP port numberkeeda waa 80 ma arkaysaa this is marka translation ka dhacayo okay waa hay translation ka dhacayo okay ka waran haddii aan tirtiro static root ka daan tirtiro ka waran static root haddii aan tirtiro translation ka mii dhaca bashqadan ka soo qaadaya kana u diraya waa fail mar waliba waajib waaye static root kaada inuu active ku ahaado you see static root kaada inuu active ku ahaado waa aaday muhiim u tahay right so aan soo geliyay markii static root kayga good milifantan NAT milifantan configuration keys marka ugu horeedo waxaan qeexaynaa access list oo aan ku cadeynayno local IP address ka rabnay inaan qaadno marka labaad waxaa qeexaynaa interface ka aan rabno inaan dhex marino okay marka saddexaadna translation kii dhacayo this is marka NAT ka qaabku u dhacayo right so ma sameyn karnaa marka bool ahaan ma u sameyn karnaa ha waa u sameyn karnaa marka ugu horeyso waxaan iska tirtireynaa NAT ka aan qornay waxaan leenahay command dhirka badnaa meeshaan ku qornaay aan adeegsanayna waxaan leenahay no IP NAT inside source list interface overload okay ogo marka aan sameynayna public NAT ka waxaana laga rabaa inaan caddeeno IP addresses ka aan rabno in aan dhex marsiisano right okay don't forget inaan mar waliba sameysato access listiga hadda anaga hal xabaan noogu qoran right waxaan leenahay IP NAT okay IP NAT markaa dhaano inta maxaa ku qoran bool mujida waxaa leedahay bool
kadib maxaa sheegaysaa buulkaada public underscore addresses kadib maxaa qeexaysaa IP-yada aad rabtid dynamically in loo bedelo waxaa leeyahay 10.0.0.1 okay oo ka bilaabanaya wuxuu ku eg yahay let's say 1 oo ka bilaabana wuxuu ku eg yahay 10.0.0.254 okay kadib maxaa cadeynaynaa subnet mask anaa idin fasiraya no worries waa 255.255.255.0 okay waxaan qoraynaa cafwan net mask kadib waxaan sheegaynaa subnetka okay tartiib idinku fasiraya okay maxaa qorna marka waxaan qornaa ib nat oo macnaheedu dhigan tahay translation harabna translationka marka la sameeyana waxa la isticmaalayaa pool of ip addresses poolkaas magaciisa waxa uu bixinay public address poolkaas nambarada waxa lagu translate galayna waxa laga bilaabayaa 10001 ilaa 254 nambaradaas waxay yeelan doonaan subnet mask oo ah sida enter right enter marka dhaana maxaa ku xigo enter marka dhaano maxaa ku xigo already access listiga waa soo sameeyna right access list waa sameeyna waana define gareynay poolkeena okay poolkeena waan define gareynay maxaa laga baahan yahay marka hadda inaan interfaceski aan ku cadeyno okay waxa leenahay ibnat inside source list 1 maxaa soo staa poolkeena magaciisa muxuu ahaa poolkeena magaciisa waa kana waa idin fasiraya no worries okay kadib maxaa leenahay overload hadday iyo hadda farqi u dhaxeeya maxaa waay horta kana idin fasiro macnaheedu waxa tahay translation aan la sameeynaa translationkaas list 1 laga soo baxsanaya okay oo access list haday noo abuurnaa kadib laakiin access listigaas pool ajo poolka maxaa waay number of ip addresses 254 ip address dhamaantoodna overload ha ahaadaan dynamic ha ahaadaan okay so hadda haddii aan imaano computerkeeni oo aan booqno refresh aan dhahno kadib aan imaano routerka haddii aan do show ibnat translation maxaa arkaynaa 10001 10002 maanta waa isbeddelaya marka server kale hadduu jiro oo imaado router kale 10003 oo noqonaya 4 oo noqonaya 5 oo noqonaya 6 oo noqonaya maanta dhan mujida intu way badanaysaa because maxaa cadeynay public policy cadeynay 254 router hadaa dhigato 254 jeer translation kala sameynaya mar waliba laakiin daqiiqad waa isbeddelaya kana marka maxaa loo yaqaanaa dynamic nat loo yaqaanaa dynamic nat oo pool la adeegsanayo okay so muuqaalkana configurationka xagana ku ekeysiinayna